wafdi musharaxii ku-xigeenka madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani ambasador maxamed cali aw cabdi oo maanta booqday buurta dalxiiska ee daalaw iyo deegaanada ku xeeran ayaa ballan qaaday in xisbiga wadani haddii uu talada dalka ku guulaysto uu wax ka qaban doono buurta dalxiiska ee daalaw iyo goobaha kale ay caanka ku tahay gobolka Sanaagba waxaanu musharax ku-xigeenku goobtaasi ka sheegay in dhismo hotel oo casri ah ay ka dhisi doonaan xilliga ugu horeeya ee xukuumadooda si dalxiisayaasha caalamku u yimaadaan dalalka adduunka waxay kharash badan iyo waqti badan iyo hanti ku bixiyaan inay abuuraan goobo dalxiis waxa nasiib darro ilaahay isagoo ina siiyay goobo ilaahay diyaariyay oo adduunyada ku yar noocan ku yaalo kale inay dayacnaadaan waa aragtaan waxa durdur bay ahaan jirta halkani ceelal baa laga sameeyay way dumeen way baabeen waxaan rajaynaynaa ilaahay dadkii markaan kursiga wadani ku fadhiisto inayna muddo yar dabadeed halkan dayacaas ka muuqan doonin ee ay noqon doonto meel adduunyada iskugu timaado shalay waxaanu soo booqannay airportkii Carigaabo waxaad moodaa airport ma ahayne way aragtay bulshada inta daawatay TV-yada waa meel laga guuray magac baa malaa ku haray waxaan rajaynaynaa airportka ay halka hadii la isku xidho waxaan rabaa inaan dhagax dhigno halkaasi oo ay noqoto xudunta dalxiiska gobolka Sanaag inay noqoto baabeen marka waxaan rajaynaynaa annaga u maqan waxa la weydiin waxa saa u dayacay waa dawladda jirta waa kulmiya iyaga ka mas'uula annaga dhisi doona wadani baa hagaajin doona ummadda Sanaagna waxaan leenahay Carigaabo gaar ahaan ka faa'iideeya waqtiga kaarka qaata kuna codeeya fartiina sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani laba qodob oo quraatu ma ka hadlaya qodobka koowaad waxa weeye baaqaan u dirayo gobolka Sanaag bulshada ku dhaqan kaasoo ah baraarujinteena kaarka codbixinta ay qaataan kaarkaas oo ah rasaasta quraata ee lagu dagaalami doono hadhow looguna heelin doono xisbiga wadani insha Allah marka waxaan u leeyahay gobolka Sanaag iyo Soolba kaarka qaata dadaalada ku dhow ayaan soo kormeerna qaabka ay u socdaan kala qaadashadu runaantii gobolka Sanaag aad baa loogu soo dhaweeyay xisbiga wadani si wanaagsan kaarka u qaadanay way muuqataa codkoodana waxa rajaynaa inay wadani u hiliyaan oo isbedel ku keenaan halka waxaan baa uga dirayaa bulshooyintii reer Hargeysa sida beesha galbeedka ee Gabiley iyo waqooyiga Hargeysa waxaan ka soo jeedo waxaan leenahay sheegaantii riyadaydu ku waxay ma ahayn runay sheegaantaasi way dhamaatay Carigaabo ku soo dhamaatay dawladdan maanta jirta ee kulmiye muddadii ay joogtay runtii way dayacday hadda waqtigeedu waa gabaabsi u malayn maayo inay u hareen waqti ay wax kaga qabato laakiin insha Allah taala madaxda halkan joogtay xisbiga metelisa wadani iyo madaxda ka maqan waxaanu shacabka reer Sanaag u sheegaynaa inaan il gaar ah barkhad maxamuud geedi bulsha TV wararka gobolka Sanaag